jaamacadda cilmiga caafimaadka Soomaaliya Muqdisho Rajab Tayyip Erdogan kulliyadda caafimaadka waa jaamacaddii ugu horeysay ee laga leeyahay waddanka Turkiga ee laga hirgeliyo gudaha Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Muqdisho. Jaamacadda muhiimadda ugu weyn ee loo aasaasay waxay ahayd in baahida dhanka caafimaadka la buuxiyo iyadoo la raacayo madaxweyne Erdogan wadadii uu bilaabay 2011. jaamacadda waxaa ka qalin jabiyay 3 dufcadood kuwaas oo bartay xirfadaha caafimaadka ugu baahida badan waddanka. jaamacadda habka ay casharada u bixiso waa hab caalami ah oo dunida dhan laga aqoonsan yahay. jaamacadda waxay heshiisyo badan la leedahay hay'ado caalami ah. kulliyadaha ay bixiso jaamacadda waxay kala yihiin kulliyadda kalkaaliso, kulliyadda umuliso iyo kulliyadda gargaarka degdega iyo maareynta masiibooyinka. jaamacadda hal mar ayay arday qaadataa sanad dugsiyeedkii waxayna ardayda ka qaadaa imtixaan qabuul ah. ardayga ku soo baasa ayaa jaamacadda loo qaataa. sanadka koowaad ardayga waxay si fiican u bartaa luqadda Turkishka maadaama jaamacadda luqadda ay ku baxayso tahay Turkish. jaamacadda waxaa wax ka dhiga macallimiin Turkiga laga soo diray iyo macallimiin Soomaali ah. isla markaana ardaydeena waxay baraatikada ku qaataan isbitaalka tababarka cilmi baarista Rajab Tayyip Erdogan ee Kastikfer. waxa ugu muhiimsan ee laga doonayaa markaad isdiiwaan gelinayso: 1 baasaboort ama dhalasho iyo sugnaan, 2 sawir oo teesara ah, 3 shahaadada dugsiga sare ee dawladda, 4 transkriptiga iskuulka. diiwaangelintu way bilaabatay waxayna ku eg tahay 4 bisha 9 2023. wixii faahfaahin ah kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda.